Asalaamu calaykum kusoo dhawo channelkayga magacayga waa Ifraax haddii taa markuu ugu horeysa channelka soo booqatay please aniga ilowina subscribe saartid like iyo comment haddaa hore noola joogtana welcome back sidoo kale share noo dheh like na video inoo sii saar maanta waxaan jeclaystay inaan wax yar oo simple idin la soo wadaago oo ah miiskaaga fadhiga saddex qaybood oo kala nooc oo design qurux badan sida ugu samaysan kartid adigoon qarash badan ka galin wax badan aadan soo gadin ayaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo marka please subscribe tii saara like tii comment intaba waa xageena like wax ma idinka gadno anina dhiirigelinayay tahay commentigiina qurux badan markastoo aqristana waan ku farxaa waana ku mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga marka maanta waxa waa videogeena wax yar oo iska simple oo easy ah soo samaysanina waxaan ugu talagalay baayooyinkayga oo rabaan in yacni design qurux badan oo hadana simple oo guri kasta oo aad ku heli kartid meel walba shay walba wax ka soo gadanaa waa soo weydii kartiin waan idin soo sheegayaa marka insaan hadda ka soo dhigay qaybta koowaad waa qaybtan hadda sameeyay saan yacni wax badan ma soo saarin waa ujeedin waxa iisaan wax yar oo buug iyo dhalo oo marka dalbanayay alaabteeda fadhiga ay ugu la socotay marka waxaan geli kartaan simoblar waana kana waxaan waxa waa shay waaye dhalada oo wax ay ku jiraan waxa ka heli kartaan dukaan oo Instagram ay qabaan dukaankaas darabtay magaciisa meesha ku soo qora meesha ka dalba kartiin bookiskan waxa ku sheegay live-kayga oo hada live-kayga shid waa ka dhageysan kartaa waan arki kartaa because habeenkii aan keenayay ayaan bisla markii idin tusiyay marka shimbirtan oo meeshii saaran waxa way farmashiin waaye waa kana wax badan ma waayeen lacag xataa waxay ahayd 9 karoon oo maleena marka abaydee macaan wax ugu muhiimsan waxa waaye sida guriga kuugu qurux badnaa karo iyo waxyaabo qurux badan oo iska simple hadana qarash badan aadan ku galeenin oo adiga tabartaada inaad soo gadatid muhiimad ma aha inaad wax badan soo gadid si guriga qurux badnaado hadda waxa waaye fadhigayga saana ka soo dhigay barkimii hore igu yaalay wali ii saaran because ma rabina hadda iska badalo because laba isbuuc ka yaraahaysta waxa rabaa adiga bil ama 2 bil ama inay ii saarnaadaan si aan markaas hadana mid design kala qurux badan oo hadana aan u soo dhigto waana arkaysaan waa isku soo saareen wax dhan waxa waaye maasha Allah wax oo kalar badan kuma jiro fadhigaaga inuu ku xiran tahay iyo barkimaha isticmaalaysid wixii kalar aad isticmaalaysid oo miiskaaga ku soo baxaayo marka hadana halka soo damay waxa ay shidan business TV-ga oo gadaal ugu dhagsan waana arkaysaan waxa waaye ligsid waayaan ku dhahay maasha Allah laga sheekeyn karo waqti markaa haysatid jawi degan nalkay waxa soo shitay shumaciyaan shiday waana arkaysaan maasha Allah aad u qurux badan yahay shumacan waxaana samaystay waana kana markasto waa kuwana qurux maasha Allah abaayooyin ay soo weydiiyeen TV-ga wax iga ka shidan maalin hore inuu dab run ahaa ama dabka inuu caadiga ahay abaa macaan dabka oo TV-ga aad ka arkaysan hadda candle ay shidan oo xataa TV-ga ka geystay waa video YouTube-ka ka daawan kartid hadda ku qortid candle ku soo baxa marka hadda Swedish ku sheegna waxa waaye use kada ku shid ka dalbatid
kusoo baxa waxyaabo badan oo qurux badan ka heli kartaa. oo qoryaha iyo shidana hadaa rabtid waxaa ku qoreysaa fireplace, markaas waxaa kusoo baxaya noocyo badan oo kala duwan. marka waxaan rajeynaa inaad fahanteen. marka maasha Allah walaalahayga hadda waxaa soo galnay qaybta labaad aan soo saartay. waxaa rabaa videoga soo igu dheeraanin anoo soo saaray le hal mar aan idiin sharaxo oo idin kala tusiyo. waa arkaysaan meeshan waxay saaraan dhaladii haday aan qaybta hore kusoo isticmaalay iyadoo 2 xabo midna way ka weyn tahay midna way yar tahay. soo waxaan soo isticmaalay labadooda. haddii aad haysatid bogasyasha oo maxaa la dhahay Chanel-ka iyo Gucci, Versace kulli bugaagta oo fashion-ka hadaa haysatid that's enough ma ku filan tahay inaad isticmaashid. quruxan ku siinaysaa. aniga waxaan soo isticmaalay hadda dhalooyinkan marka waan ilo soo baxday yani maasha Allah waxa waaye silverka hadda u badan. marka waana kana aad u qurux badan yihiin. meeshan waxay isticmaalay fooskaas waxaan soo ubax oo u eg barkimahayga. marka waana kana maasha Allah saas oo igu soo baxay. waxa waaye bogiska hadaa isticmaalayna geeska ka soo isticmaalay waxaa soo saartay dhagax. maasha Allah bayooyinkayga qaaliga iyo intii daawanaysa waxaan rajeynaa in aad videogana ka heleesheen. inta hadda ay soo gaartane subscribe taniga ilaawin iyo like-ta videoga. marka hore like saar 5 daqiiqo oo ku siinayna sa videoga like-ta u saarta like-ta wax ma ka dhibeyso. anina wax dhiirigelinay tahay bayooyin badan oo decoration-ka jecel ka faa'iideysanayaan iyo maasha Allah dad cusubna way nagu soo biirayaan si oo YouTube-kayga hore ugu socdo. waxaa jeclaan lahaa inaad iga caawisaan qaybta like-ta insha Allah. waan kana design-ka labaad leela marooya wali light-ka hadda waa soo damiyay. waa aragteen maasha Allah very nice waayaan ku dhahay. waan aragtaan miiska wax badan mana soo saarin haddana maasha Allah inaba caadi ma aha. wallahi waan ka helay aniga wax yar iska simple oo iska fudud waayo qurux badan. ma u baahnid inaad miiska wax badan aad soo saartid si uu qurux badnaado. maasha Allah waxaad soo galnay qaybta ugu dambeysay qaybtan saddexaad. miiska aad u sharaxan kartid style qurux badan. marka haday waxaan ka waday hadda ayaan si fiican idinku sharaxayaa. haddii aad soo saartid color miiskaaga waxa u baahan tahay in shay u eg ama shaygaas shay shaabaha oo isku keeni kara colorkaas inaad miiskaaga u saaran yahay. saa arkaysan hadda waxa waaye miiskayga waxay saaran waxa waaye colorka madowga madowgan shayga madowga maasha Allah aad u qurux badan yahay. waxaana ka haystaa 3 yacni oo dhalo oo madow marka hadaa hal dhalo madow ay noqon lahayd meesha dhan waxay noqon lahayd qash. saas aan aaminsanahay arona sida adinka ugu fikiraysin. laakiin waxa u baahan tahay mar walba wixii la eg in ama ishaabahayaan inuu miiskaaga saarnaado. haddii hal dhalo madow badan meesha iska aaleyso yani meel qurux badnaanay. waan arkaysaan hadda indhaha marka ugu hore waxay qabanaya waxa waaye shayga madowga iyo dhalada kale iyo tusbax meesha ii saaran waxa waaye isku color waaye. haddana meeshan dabqaadka oo hadda maasha Allah ii yaalana waxa waaye color xoogaa gold ku jiro cadaan ku jiro oo yacni iskeenayaan colorka beige-ka tusbaxa iyo dhalada kale meesha ii saaran iskeenayaan. marka taasaan ka waday walaalahayga. maasha Allah waan ila fahmaysiina u maleynaya hadda aleedmo hadda marka videoga maadaama uu yahay qaybta ugu dambeysay. marka waxaa soo shiitay unsiga maasha Allah aad iyo aad u carf badan yahay. I love the guriga dhan oo qabsana waa arkaysaan aad iyo aad u yacni u carf badan yahay. waxa la buqaari Allah waxa ka soo gaday dukaan carabi marka wallahi smells so good oo kale waa arkeen qowriga dhan oo qabsada qaaciis tartiis laakiin waa carf maasha Allah. marka waxa waaye carafta waan jeclahay qof walba way jeceshahay maleenayaa. waxa waaye maasha Allah. marka ku soo noqono qodobkeena maasha Allah waa arkaysaan in yacni waxa rabaa aad ka maarmi kartid
saarto saxanka miiska la saarto everything waxyaaba qaarkood oo aadan muhiim u ahayn inaad qarash kaa gelisid oo wax badan aad kusoo gadid aadan u baahneenin wax kasta oo yacni maasha allah miiskayga ama guriga ku aragtiin waxaa ka dalbadaa Shein ama dukaanada oo Sweden wax kamid rustaha maasha allah waxay qurux badan yahaayaan yiskaha sidoo kale iyo Hemtex IKEA yacni maasha allah dukaano badan iyo hadda kusoo koobi karin meeshaan aa jiro waxay qurux badan yahaayaan marka meelahaasna waa yacni inay la soo fiirisiin waaye maasha allah waana kana yacni qaybtan maasha allah aad uga helay waxa waaye kalarka madowga hadda isticmaashid waxa waaye barkimo xogaa waxa u baahan tahay 2 iyo 3 oo madow ah si uu ugu soo baxo styleka hadda waxa ay soo shitay nalka haddana waxaan isticmaalay nalkayga oo telefoonka ku isticmaalay marka waxa waaye 2 nal waaye so haddana waxa waaye just xarabaynaan arko sidoo ku soo baxayo marka maasha allah waana ka helay arkaysaan qolka dhan qurux ku soo baxay kalar waxa dumaysaa in blue ku shidan camal laakiin ma ahan so waxa waaye nalka waa damiyay marka maadaama nalka soo damiyay waxa soo shita wax yar oo candle TV-gana ka shiday maasha allah yacni light-ka oo TV ka soo baxay hadana maasha allah ku soo baxay qurux mu baahnid inaan nalka la shiishid yacni saano ku soo baxay hadda marka nalka la damiyo qurux waaye so kana waxa rajaynaynaa ka heshiin qaybtan iyo qaybaha badan iyo kuwa kale soo socdaan hadda ka heshiin part 2 soo sameeyay waa soo sameyn doonaa hadda waa la yiraahdo insha allah ta in video soo gaartay subscribe ta like ta iyo walaalaha hanaga ilooweyn inaan noo saartid walaalahana la wadaagtid insha allah hadda aleedmo video kale waa soo wada labadan bari waxoogaa waa xanuunsaday karaale noqda video ma soo gelinin 3 maalin 4 maalin oo malena waa xanuunsanay waana shaqeynayay marka insha allah videoyasha waan soo wadan doonaa hadda aleedmo inta video waxay kulmi doonaa waa idinka tagay sida nabadgeliyo isma dhaafno khayri bashbash iyo farxadan dhamaanin inuu ilaahay idinku deeqo inta xanuunsan ilaahana caafiyo